السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب kusoo dhawaada channelkeena. Waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo video kooban laakiin xalinayo problemkaas laga yaabo in dad badan qabsaday. Waa video kooban laakiin muhiimad leh oo muhiim ah. Wuxuu ku saabsan doonaa videogan SQL Server ama SQL Server ka taqaanidba database-kaas ku saabsan doonaa. marka waxa laga yaabaa sometimes markaad gashid SQL Server kaaga inuu kugu xidho waayo connect markaad tiraahid inuu connect-ga kuu qaado waayo laga yaabaa si caadiya ayaad ka baxday hadhow baad soo gashay connect baad tiri inuu ka noqdo laga yaabaa. marka videogan wuxuu xalinayaa problemka sidee connecting-ka u samayn kartaa, sidee uga qaadi kartaa error-ka, inta oo kaliya ayuu xalinayaa. markuu sidaa ka noqdo SQL Server kaagu waxaad tegaysaa start button-ka ayaad tegaysaa, then laba siyaabo oo samayn kartaa inaad tirahdid markaa all apps ama all applications inaad tirahdid dabeetana hadana waxaad ka baadhid waxa la yiraahdo SQL Server configuration inaad halkaas ugu baadhid Microsoft SQL configuration. taas laakiin se waxaa ka fudud inaad halkan ku dhufatid waa search aad tirahdid dabeetana aad tirahdid SQL halkaa ku qortid search button-ka SQL Server SQL Server Configuration Manager waa ka aad ka dhufatid yes bataasa. markaad yes tirahdid halkan oo kale waxaa laga yaabaa aniga hadda halkaas ii taagan tahay highlight halkaas ii saaran yahay laakiin waxaa laga yaabaa in halkaas oo kale uu highlight ku fuulo. marka halkaas oo kale uu highlight ku saaran yahay waxaad tegaysaa waxa la yiraahdo SQL Server Service ka labaad ayaad tegaysaa. markaad tegtid waxaad tegaysaa halkaas ayaad tegaysaa waxaad tegaysaa SQL Server SQL Express 2 halkaa aniga magaca SQL Server kayga markaan install gareynaya aan ku qoray ayaa halkaa iga soo baxay oo ah SQL Server Express 2 laakiin adiga Express 1 ayaa laga yaabaa inuu ku yahay ama magac kale inaad loo baxday laga yaabaa. marka alxasil ka SQL Server ay ku qoran tahay xaggaan ku raacsan yahay bracket iyo magaca computerku ama magaca serverka ayaad ku falsaa kun hoose ku dhufanaysa agent iyo browser ku dhufanaysa kaas ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid waxaad tegaysaa menu-ga sare dabeetana halkaas maaragtid start service u qoran tahay adeega bilow. marka uu kaa taagnaa marka hore stop buu ka ahaa hadda start baad dhahaysaa then start baad dhahaysaa waad aragtaa calaamadii startka ayuu kugu soo qoraa hadda wuu shaqaynayaa. haddaynu tijaabinayno waxaan ku noqono SQL Server ku noqonaa new query dhahna hadda connect markaan nahno waa nooc aad ugu xirmaa oo aynu wax ku qori karnaa simple. marka waa balay then halkaa waxaad doontaa ku qoran kartaa database badan ku kartaa waxaad doontaa ku qoran kartaa waxba kaama diidiyo create database awdi wuxuu kaa diidaya malaha hadda waa database badan ku kartaa aan ku uri okay intaas ayaan rabay inaan idin soo gudbiyo caawa. aad iyo aad baad mahadsantihiin. haka ilaabina subscribe-ta, share-ta iyo like-ta, comment-iga. aad iyo aad baan idin salaamay. Assalaamu calaykum.